بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان إذن هانتين بإذن رجينيا بدقب فرحات يورين وحان إذن كسو دوينيا فرحات فولفرنان إيو اللاب حاران أنيقو متري شبكدان ملقاها بدن إي كسونتان سمدور مركا حيكتا شبكدان أما جنال كان وحان اسكو إدار سنينا أما إذن كلا وداقينا حكمدور شيكوين إيو وربحنا مقي ميسان بدن أوهوان دنبالا قسيا نلوش سيدو كلا كوحرناشيها كانال كان منوقن دونتو مد دمية waqtigaaga bila faa'iido ee ba'idankii balse waxaad ka daalacan doontaa murti aqoon iyo waayo aragnimo badan oo ka saacidi doonto hardanka aad kula jirto ka goongaaridda yoolkaada oo aad uga taqalusi karto hirarka adag ee ku gadaaman kuna guntan himiladaada iyo mihnadaadaba sidaas darteed ha moogaan oo ku soo biir shabakadan qiimaha badan oo subscribe garee gambaleelkana furo si aysan kugu dhaafin macluumaadiyada aan halkan soo gelino insha Allah waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak haatan ku soo dhawaada mawduuceena maanta xigmad iyo sheeko wuxuu noqon doona barnaamij taxanaha oo ka bixi doona kanaalkan insha Allah wiilashii mataanaha ahaa sheeko xigmad badan laba wiil oo mataana ah ayaa waxay la soo koreen aabahooda cabtooy ah alcoholic mid kamida wiilashii wuxuu noqday mid ku koray dhaqankii aabihii ee ahaa cabtooynimada alcoholistinimada oo wuxuu raacay wadadii aabihii maalin maalmaha kamida waxaa la weydiiyay wiilkii yaraa ee cabtooyga noqday sidii aabihii waxa ku dhacay wuxuuna ku jawaabay waxaan daawadaa aabahay oo kaga daydaa dhaqankan wiilashii midkii kale wuxuu noqday mid ka maran oo aan raacin wadadii xumayd ee aabihii ku noolaa ee cabtooynimada wuxuu noqday haldoor noloshiisa badbaadiya asna sidoo kale waxaa la weydiiyay waxa ku dhacay ee ka duway aabihii wuxuuna ku jawaabay waxaan u fiirsaday oo aan daawaday dhaqanka aabahay waa laba wiil oo isku aabe ah haddana isku meel iyo isku xaalad ku soo koray laakiin waxay ku kala tageen kala aragti duwanaansho oo qofba meel ayuu nolosha ka eegay nina dhinacii xumaa ayuu ka doortay nina dhinacii wacan dulucda sheekadu waa inaad ogaataa in hab fikirkaagu uu ku go'aaminayo sidaad noloshaada ka yeeli lahayd haddaba hagaaji fikirkaaga iyo doorashadaada in aad noloshaada u noqoto dhaqane ama dhibane adiga ayay hab doorashadaada ku xiran tahay adiga ayaa noloshaada iftiinsan kara adigaana mugdi ka dhigi kara waxaa halkaas nuuga barnaamijkii taxanaha ahaa ee xigmad iyo sheeko qaybtiisii labaad la soco qaybaha xiga insha Allah mahadsanid fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like garee kanaalkan subscribe garee si aysan kuu dhaafin barnaamijyada xiga ee halkan soo gelin doona insha Allah